السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواذا جنال كيغا قلبي وناك اوفيشيال رمضان مبارك. رمضان واسي دمانو يا كلا برك ولا دافاي خارت تضبيط طبعا رمضان واتغي بري ما انت لحي طبعا واي بري او سبديه تضبيط طبعا واي ما شاء الله ما شاء الله. إلهي كان كيسانو قرسي عافماد بش آمين آمين. كستو جوكتين رمضان كريم. أصحابتي جنال كيغا waxaa ugu barateen horta baraambur inkastoo ramadaan soo u gal aan is arkin aniga adinka baraambur iyo waxaas caawan iskala soo tagay ramadaan lagu jiraa marka caaw la sheeko ala idin wadaaye nagu qaata yaa waxa marti iyo waa janaal keyga Caasha Cabdiqani ma sha Allah gabar qalbi wanaagsan. Thank you. asxaabtu soo dhawaada channelka waxyaabo badan anaga barateen aad waxyaabo kaleeto oo kasi fiican oo anaga sugeysaan ana soo dhaweeyo walaashay qalbi wanaag official share dhaha commentiga subscribe ka noo saar anaga hagranina caaw maxaa noo heesaa qadro caaw horta Caasha waxaa ahaaya sheeko qosol badan waxaa jirtay nin aan naag qabay Soomaa ninkii markuu naagta qabay naagtu waxay bartay ninka qadada ka hor inay siiso waxyaabo ay qadada oo ku sii sugto oo macmacaana hadee juice tahay hadee caano tahay hadee wax yar oo kafee iyo adiga ay tahay keeg iyo waxaas bis markii dambe to naagtu waa ka dhimatay dar alla qadartay ku imaatay naagtu way dhimatay bis markaas naag kale oo soo gursaday naagta kale markuu soo gursado naagtii hore waxay bartu rabaa ninka moogta keeg iyo wixii qadada looga hormari jiray casha markii u karinaysan waxay sii jirtay shaah iyo waxyaabo ku sii sugto cashada ilma yar camal waa la sirsiri jiray xabadii ma dhimanino xabadii kale soo gursado xabadii yar oo iska yar oo gabar ciyaalka iska xaafada ma taqaan markii qadada waqtigeeda le markay karsantay la siinayaa cashada waqtigeeda markay karsantay la siinayaa bis abo hello meeshaan jikada ku agar wareega markaasuu leeyahay Allah yaa u sheega macnaha xabadii ka dhimatay waxay sii jirtay camal nina Allah yaa u sheega uleeyahay markaas way yaabtay maalintii dambeetay waxay dhahday horta ninkan maalin ilaahay keen muxuu ka wada Allah yaa u sheeg uu kor gabiya hooyadeeda u dhaweyd hooyadeeda u tagtay hooyoy ninkan marka cuntada karina maalin ilaahay keen wuxuu leeyahay Allah yaa u sheeg uu kor leeyahay muxuu ka wada camal markaas ay dhahday hooyadan marka gabadha hore dhimatay Allah u naxariistay way taqaanay xaaskiisa hore taqaanay sax markaas ay dhahday oo darsi ahaa jireen markaas ay dhahday xaaskiisa hore wuxuu sameey jirtay cuntada ka hor ee waxay u kari jirtay waxyaabo yar yar oo macmacaan iyo shaah iyo cabitaan iyo oo ku sii sugto cuntada qadaha deetaay cashaha deetaay wax ugu hormari jirtay sii jirtay ma fahamtay kaamirada dhaqdhaqaaqay asxaabta iska raal noqdaya anaga hadal ma aqaan horta hadal ma aqaan marka caawa xoogaa iska soo gamanayna guriga la iskaga caajiso lockdown waa ku jirnaa ma fahamtay lockdown 14 days lagu daray Mombasa guriga la iskaga jiraa marka banaanka ta adeeg ma ku doonaan guriga lagu dhex jiraa ilaahay naga dulqaado marka xoogaa caawa iska qaraxaysanayna ma fahamtay waa naga tustay ina video hadal ma naqaan laakiin marka hooyada u soo sheegtay waxaas sii jirtay u sameey cuntada ka hor waxyaabahaas la sii jiray hayo waayahay maalintii dambe qadada markay karisay naagta waxay u sameeysaa ku dhahay xoogaa yar macmacaan iyo juice waxbay u sii geysaa cashada markay kariso inta cashada uu suganay haddana waxa u geenay shaah keeg waxyaabo macmacaan oo ku sii sugta cashada inta la karinayo bis markaasoo xabadka wuu yaaba wuxuu dhahay Allah yaa u sheegay marka hore Allah yaa u sheegay ahayd moogtaa haddana wuxuu keenay Allah yaa u sheegay markaasay dhahday maxaa ka wadaa camal marka horena Allah yaa u sheegay haddana Allah yaa u sheegay waaye markaasuu dhahay waxay u sheegtay waxaa la yaaba u dhahay marka hore
waxaa isdhihi jiro alla yaa u sheego haddana waxaan la yaabana cidda kuusoo sheegtay oo alla yaa u sheega u leeyahay waxaan in la ii samey jiray waxaan inaan rabo camal see ku ogaatay markaasay u sheegtay dhahdo hooyaday iisoo sheegtay wallahi sheekadaas caadi ma waa iga gadantaani caadi ma ah wallahi billahi salquslayaa ku dhahay marka asxaabta waxaa idin leeyahay commenti noo reeb haddaa ka heshay sheekadan like share subscribe-ka qalbi wanaag official yaana laga hagranin ayaantan hawada ku kala maqneen ma fahantay soo noqod labaad insha Allah buraanburkii waxyaalihii dhacdhac waa la soo badinayaa sheeko kale jirto baadiyaha hay casho sheeko kale waxaa jirtay gabar oo reemiyi ah oo waxay sameysay ari raaciisay gabar qurux badanna way ahayd markaas nina u imaaday oo dad qalate ah oo baadiyaha 5 cunugna haysto 5tiisa cunug geedu intuu soo saarto bahalada iyo wuxuu ilaalsadaa iyo dadka qasho sax bis maalintii dambe gabadhan quruxda badan oo ariga ilaalinaysa uu yimid markaas wuxuu ku dhahay uu shukaansado damcay wuu shukaansaday gabadhi wuu u sheekay markaasay dhahday way la dhacday gabadhi way ka heshay bis markaasay dhahday wuxuu dhahan ku soo mehersado ninkii gabadha way jeclaatay markaas ilaa waa qof waxaa jira moogta markuu kuu sheekeynayo hadalkiisa aa ka helaysid ku qancinayo aa jira moogta naagta ninka waa ka heshay shukaansigiisa iyo qanciye iyo hadalkiisa ragga waa kala aftahansan yihiin moogta markaas way raacday wuxuu dhahay may intaas raacin waa ku mehersadoo dhahay waxay dhahday doono saaxiibo ciddeeda iga doono wuxuu dhahay xoola iga dayacmaayee horta ciddeeda intaan ciddaada kaa doonanin soo baxo iraaco xoolahayga geela iyo ariga iyo lo-deedii iyo aan kusoo tuso hayay dhahday way raacday si u socdeen waxay tageen meeshii oo ilmihiisa ay joogeen markaasuu dhaa saaxiibay dhegayso aniga inaan ku qashaar baa u dhahno waa u sheegay nasab geedkaasuu dhahay ilmaha ii saara anaa dhalay uu dhahay adaana caawa hilibkaaga kugu cunayna markaase yaab asxaabta codkeena haddaa si fiican u maqlayna xoogaa ergibaa iska jire ergib haddii la sheegay sanadkan waa bis corona waaya la leeyahay nagu qaataya marka waxay dhahday haye waayahay waan ku qash inay qalata ma rabtaa ay dhahday hadda haa haye waayahay maxaa igu korsay dab aawe dab waa haystaa kuwaas qoriya aan shida lahaay u dhaa saaxiibay inaan kugu cunaan rabaa u dhaano markaasay dhahday markaasuu dhahay biyi aawe dhahday igu karsa lahayd waxaa samaysay si aana kaaga fakanin geedkan igu xirxiro ordkeen waxaa igu cuni lahayd geedkan inta igu xirxiratid si aana kaaga fakanin biyi doono haye waaye geedku inta xarag qaatay oo ku xirxira gabadhi oo biyo raadsaday oo ku karsada hilibkeeda markuu ninkii baxay ilmihii kor u fiirisay markaas ilmihii way u tashanayaanba waxay leeyihiin alla naagta qurux badanaa alla naagta buuranaa barida lugta garabka aniga intaan leeyahay jirkeedii lagu xisaabtay waxbada markaasay dhahday inaa iqalatiin ma rabtiin haa waa ku cunaynaa baruur xabad qurux badan oo dhisan ahayd mogta oo xoogaay baruur saaran tahay markaasay dhahday waxay dhaheen soo dega dabkii aa idinkugu dhici lahay siishata intuu aaba biyaha ku maqan yahay waaye way soo degeen dabkii shideen holac markay shiteen waxaa soo baxay waxay tiri haye xarigga iga fura dabkiisaa idinkugu dhaco odaygu maqan mogta ilmihii waaye dabkiisaa idinkugu dhex dhaco waxay dhahday iga fura xarigga aan dabka idinkugu dhacee haye waa ay xariggii ka fura inta iskugu tageen xariggii markay ka fureen waxay dhahdeen haye inta orada ilmihii dabka ku rida shantii cunug oo bislaatay oo dabka inta ku rida ka fakatay ayadana cagtay ma aragtay waa ka cararta hadhow camal uu yimid abweelow biyo wata ilmihiisii oo gamaaray oo gubtay markaasu wuxuu yiri muxuu samey karaa ninkii dad qalatu ahay ilmihiisii waa laga gubay wuxuu yiri waa dhallaankaagii oo dhilla dabka ku riday iska dhunkuluxsaa iska dhunkuluxsa waa dhallaankaagii oo dhilla dabka ku riday iska dhunkuluxsaa
waa dhallaankaagiyo dhilla dabka ku ridee iska dhig kuwisa ahaa alaabo la ilaha illallah ilmihiisii cunay wallahi bilaa sheeka fani ma lahayn wallahi sheekada caadi ma ahayn saa u qoslo wallahi bilaa sheekadas markii la iga sheekeeyo sheeka mid waxaa jirtay oo maanta meel aan ka aqriyay ya wallahi sheekadas hal saaca u qoslaya waa soo manaa kow dheh afurka loo dhawaa marka sheekadas arkayno bis markaasaa qoraalaa ka aqriyay sheekadan waxay dhehe kulaha nin oo reer waqooyi ah wuxuu dhahay xamar tegano xamar markuu tegay kaara xamar tegay oo taariikh ka raacin ma jirto garanti ina wax ku dhacaan reer waqooyi xamaray tegay oo tegay ninkii gabar reer kaaraan uu guursado xabadkaano bis gabadhi markuu guursado gabadhi uure u qaaday uurkii markay qaaday xilligii dhamada la gaaro mogtaha markaasuu gabadhi fooshay qabatay oo malisu u geeyay cabaar kabacdi albaabku taagay ma dhashay ma umushay uu leeyahay gabadhi ma umushay markii dambeetay albaabka ka furtay markaas umalisadii ka furtay markaasay dhahday arey waa dhasho igaaray dhasho abuhelo igaar weligiis ma maqlin hadee kaaga macda igaarka wax la yidhaha wuu yaabay arey waa dhasho igaaray dhashay wuu yaabay wuxuuse igaar maxaa la dhahaa bahal mee dhasho is fani waa moogta ciddaan wuxuu is dhahay bahal miyaa bahal miyaa kulahaa wuu yaabay xarfaan reer waqooyi kale ah oo asaga cabaar kasoo horeeyay u tegay oo xamar joog saaxiibow naagta waa dhashay igaaray dhashaa layleeyahe maxaa laga wadaa igaar maxaa la dhahaa ma bahal ay dhashay xarfaan iska dhigaa moogta magaalada uga soo horeeyay sida markii ugu yartaa waa libaax 3 jir ah kulahaa libaax 3 jir wallahi bilaa igaar uu ku dhahay marka ugu yartaa wiirna waa libaax 3 jir saaxiib sheekooyin aan ku qoslo waa marka wallahi bilaa reer waqooyi iyo reer xamar hadday isku yimaadaan qaraxa fiiraha ku xanuuna horta والله sheekadaas galabta waa soomana saac u qoslayaan kula kaligay ahay waa fuura waa iga gadantahan laakiin horta asxaabtana la wadaaga waa caawa wallahi marka asxaabta waxaa idin leenahay soo dhawaada qalbi wanaag official marka barnaamijyadii iyo wixii waa soo socdaan subscribe noo saara share noo dhaha like comment waa noo dhiirigelin haddaa rabtiin hal barnaamij qaacidin kaga siinaa inkastoo aan xabeebsanahno jar